may kaareey deegaanka haddii kuuloo yahay saddex nin oo shiciba oo haddii kuuloo midna dameera iyo haddii kuuloo dhaaq uu wato midna labana ay geela la joogto wili adeerka ay yihiin saddexdaas nin baa ciidamada Itoobiya oo luuq ka yimid iyo haddii kuuloo yahay waxay ku dileen deegaanka may kaareebay saddex nin haddii kuuloo yahay labadii oday waan aasnay wiilkiina haddii kuuloo meedkiisa haddaan soo helnay haddaan aasaynaa jeel bay la joogaan hadda way hor yaallaa haddii kuuloo toori iyo xaniinihii haddii kuuloo xarig uga qabteen dadkaasoo aad u silcbiliyeysan ciidamada Itoobiya oo ka soo baxday haddii kuuloo luuq dadkaas shicibka ay aad meeshaas haddii kuuloo si naxariis darra ugu saxariiriyeen dhibaatadaas shalay ugu dhacday haddii kuuloo caalamka waxaan ka codsanaynaa dadkaas in la arko in haddii kuuloo dadkaas dadka shicibka oo haddii kuuloo dameeraha dhaanka iyo geela la jooga alaabtoodii wato kalkoodii ishoodii masaafada ay yaalaan in haddii kuuloo dadkaas asaga caalamku inuu wax ka aqoonsado wax ka qabto saasaan codsanaynaa dadkaas haddii kuuloo intii fiigi kartay oo duurka geli kartay oo xarag ku dhixi kartayna way ku dhaxday intaasaan dadweynaha iyo caalamka u sheegaynaa annagoo ah deegaanka may kaareebay ilaa iimay ka dhaxeeya odayaashii dalkana ah iyo dadka shacabka ah waxaa meeshaan nooga dhintay saddex nin oo shacab ah oo nin uu waday gaadiid dhaan ah oo dawdi loogu yimid oo lagu dilay laba ninna ay wadeen geel wiil iyo adeerkii axmed raabi iyo cabdullaahi cali raabi labadaasoo ninoo ayaguna geel waday saddexdaa nin baa meesha haddaan shacab nahay nooga dhimatay ciidamadii Itoobiya oo dhanka luuq ka yimid baana naga dilay annaga oo shacabka ah waxaan caalamka ka codsanaynaa dadkaas in la arko oo wax laga qabto ilaa dawladda ku meel gaarka ah wasalaamu calaykum waraxmatullaah